ardayga cusub ee soo wareegay wuxuu noqday qofkii aan si qarsoodi ah u jeclaa, balse waan argagaxay oo wejiga ayaan qarsaday. isagu si toos ah ayuu xaggayga ugu soo socday, wuxuuna isku dayay inuu agtayda fadhiisto. madaxa ayaan hoos u dhigtay, marna kuma dhiiran inaan u jawaabo. isla markaas saaxiibtayda ugu dhow ayaa kursigii hore u fadhiisatay. markiiba neef ayaa iga soo baxday oo waan nafisay. markii xiisadu dhammaatay, si ula kac ah ayaan dib ugu dib dhacay si aan hawlo u qabsado, laakiin wuxuu i weydiiyey sababta aan uga dhumanayo. markiiba waan cararay. anigoo maqlaya qosolkiisa ayuu wadnahaygu dareemay culays sidii dhagax oo kale. 3 sano ka hor saaxiibtay ayaan u dhiibay warqad qiraal jacayl ah oo ku socotay isaga, laakiin marnaba jawaab ma helin. waxaan u maleeyay inuu isoo diiday, sidaas darteed marna kuma dhiiran inaan wejigiisa eego. maalintii xigtay iskuulka kadib wuxuu iga daba socday ilaa guriga, isagoo ku hoos jira nalka daciifka ah ee waddada. si aamusnaan ah ayuu gacantiisa u soo fidsaday, wuxuuna u dhoweeyey hooskayga. hooskeennu waxay u ekaayeen lamaane gacmaha ishaysta. intaanan kala tegin wuxuu igu casuumay inaan maktabadda ku wada akhrisanno, isagoo indhahayga eegaya. si lama filaan ah ayaan u dareemay inaanan rabin inaan mar kale cararo, markaas ayaan ballantaas ka aqbalay. saaxiibtayda ugu dhow ayaan u kaxaystay si ay iiga caawiso doorashada dharka, xitaa si taxadar leh ayaan barafuun isugu buufiyey. laakiin aad ayaan u walwalsanaa, taas oo keentay inaan ku kor seexdo miiskii maktabadda. markii aan soo kacay, waan sugay oo sugay ilaa habeenkii ka dhacay, isaguna weli ma uusan imaan. anigoo caraysan oo wareersan ayaan gurigiisa ugu cararay, balse waxaan ugu tegay tacsida oo ka dhacaysa guriga. keliya markaas ayaan ogaaday runta. waalidkiis ayaa geeriyooday. laga bilaabo maalintaas 2 toddobaad iskuulka ma uusan imaan. aad ayaan uga walwalay, waxaana maalin kasta quraac kula sugayay iskoyska. ugu dambayntii maalin maalmaha ka mid ah ayuu agtayda soo maray. markiiba waan joojiyey oo quraacdii ayaan u dhiibay, laakiin si qabow ayuu iiga diiday. meeshii ayaan ku barafoobay. wixii intaas ka dambeeyey isagu wuxuu bilaabay inuu iga dhuunto. maalin kasta xiisadda kadib isaga ayaa horay u carari jiray oo bixi jiray. maalin maalmaha ka mid ah waxaan helay buugiisii xasuus qorka oo uu ka tegey. waxaa ku qornaana aad ayay ii naxdin geliyeen. waxay ahaayeen erayo badan oo ka turjumaya rajo xumo weyn oo uu ka qabo nolosha. markiiba waxaan u orday jihadii uu baxay.